guud ahaan waxaan dadku kula dardaarmayaa amniga iyo nabadda inaan ilaashanno in midnimada aan ilaashanno midnimada aan ilaashanaynana waxay ku xidhan tahay in maaragtay qadiyadda guud laga midoobo iyadoo afkaaraha siyaasadda lagu kala duwan yahay inaan uga faa'iidaysto fursaddan inaan wax walba oo dhibaato ah oo dhaca laga dhex arag fursad wax lagu helo oo lagu raadsado colaadaha ayna haysta hadda laba dhinac inagaga furan waxaan ka soo baxnay abaar laakiin haddaba sii socoto taagan oo u baahan si dhaqso ah in isha loogu hayo si aynan dabatar inoogu noqon waxaa jira isbeddelo siyaasadeed oo ballaaran oo geopoliticsiga geeska Afrika iyo istaraatiijiyooyin fara badan oo isbedbedelaya waxaa markaa loo baahan yahay waxaan ugu baaqayaa dhammaan siyaasiyiinta odayaasha iyo waxgaradka deegaanku inay foorarka kor uga kacaan oo indhahooda ay ka laliyaan halka ay hadda hayso oo aragti ka duwan iyo dhaqan ka duwan kii hore aan lahaan jirnay ee kala qaybsanaanta ahaa inaan ka baxno masiibooyinka guud ee ummad ahaan nagu dhacaa dawlad iyo xisbi iyo midna wax gaara ku ahaan maayaan marka inaynu waxyaalaha isha ku hayno inay muhiim tahay in la ogaado ayaan maaragtay kula dardaarmayaa midnimada shacabka iyo dawladda iyo siyaasiyiintu wuxuu muhiim u yahay wixii aan soo goosan karno dhan amni dhan dhaqaale dhan horumar dhan walba kolba inta midnimadeenu tahay cududeedu la egtahay intaasaan ku dardaarmi lahaa dadkana waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu